way bageeka degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose deeray wafdinaska jara xildhibaan ku tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha raabta gobolkaasi way banagaroonka diyaarado ee baladoogay wafduhu ka dhawaay gudoomiyaha amniga degmada Wanlaweyn ururada bulshada degmadaasi ayaa dhawaay ku leeyahay wafdiga waliba Langalbi gudaha magaalada gaar ahaan xarunta maamulka degmada way banameelaasay si wadajir warbaahintan kala hadlay gudoomiyaha degmada Wanlaweyn Maxamed Siido Cabdiraxmaan iyo qaar ka mid ah madaxdii hogaamiyaasha wafdigu marka dhamaan aad iyo aad ay mahadsantaan kulli xafladda geega hadda iska koyni waa xaflad isbarasho kulli muhiimad inka weyn oo leen socdo waxa waaye hadii ilaa raal ku nagado maalinta sabtiga ee barnaamij oo ururka haweenka quseeyo oo degmada ilaa iyo afgooy macna lagu kooy doono doonka taxsiile warmaxan Wanlaweyn intaas oo iska jiraan ee la qabada doona ilaa raal ku nagado marka aad iyo aad mahadsantaan marka hadan ay iska dhawaayay gudoomiye ku-xigeen gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Abdul Yuusuf mudan gudoomiye soo dhawaad السلام عليكم ورحمة الله. هل يدعوا هاي؟ ما هسنتان. ما أنت ميلين الدريرت حلبانكم إذا حلبان الدولة قبلات كونفور قلبات حلبان فاطمة عبد الرحمن قول وده ميلها قدومها أورك هوين كقبلك مريم مختار إمام نادي إذن فده هيت إن ما عرفتي dadka deegaanka qaasatan in raabta in wal in qabato qaasatan in la dhiiri geliyo wala baro in raabta wal badan qabsado Quraan amba haweenka hadii si kale indhaho wal badan iyo qabsado Quraan iyo gurigi sheerogto iyo war soo saaro korte marka insha Allah oo Ilaahay raali ku dhiko ku faa'iideysan doontaan iyo team sheeba team badan aan nahay oo maamulka gobolka nala socdo waxaan nala socdo maama naadiyo teamkeeda anigana waxaan kamid ahay xildhibaanadii Koonfur Galbeed waxaan kamid ahay guddiga xuquuqul insaanka iyo habeenka baarlamaanka marka waxaan u imaanay halkaan inaan barnaamij yar oo horumarinta habeenka inaan ku fulino sidii hadda gudoomiyaha idin sheegayso gobolka Shabeellaha Hoose ka soo jeeda ahay maalinay noo imaatay waxaasay noo qabataa naftirkay sumcad iyo magac ay tahay insha Allah Ilaahay idinkiis waa dadaali doonaa inka dambeyntii meelaasay ku hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Hoose Marwa Maryan Maxamed Muqtara iyana ku warbiday ujeedadii honderangeeka degmada Wanlaweyn maanta waxaan u imaanay magaalada Wanlaweyn inaan fulino barnaamijkii ballanqaadkii haweenka aan u sameeynay hadda ka hor oo inaan reer Wanlaweyn aan ay wax martigeliyaan oo ay maxaa la yiraahdaa tababar loo sameeyay gabdhahoodii maanta kan Wanlaweyn wuu ka weeyahay waxaan ka dhignay Wanlaweyn iyo tuulooyinka hoos yimaado iyo afgooy iyo tuulooyinka hoos yimaado marka barnaamijku Wanlaweyn iyo Wanlaweyn waxay martigelinayso waaye dadka waxaan maalinta sabtida waxaan fureynaa barnaamijka oo aan u imaanay waxaan rabaa odayaasha dhaqanka waxaan rabaa maalinta barnaamijkaas la furayo number 1 ka tihiin inaad noo imaataan oo nala joogtaan oo nala furtaan oo dadka nala dhiirigelisaan barnaamijkana maxaa la yiraahdaa isheeg gabdhaha haweenka waaye haween meel joogan odayaasha laga maarmo ileen garteeno dhan idinka gooyso ma aad nala furtaan aad gabdhaha dhiirigelisaan oo aad la hadashaan oo aad u sheegtaan inay isku duubnaadaan oo ka shaqeeyaan amniga iyo nadaafadda iyo horumarka iyo caafimaadka magaaladan Faisal Dayo Raadiyo Television Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo